dee mahad salaad iyo annaga waxaan kala helnaan leenahay mahad karataa iyo annagay noo tahay godkuu galaan la gelaynaa cidaan uga baqayno iyo cidaan ka cabsanayno ilaahay mooye bini aadan ka cabsan mayno maanta wixii ka dambeeyey horeyna way u ahayd shabaab godkuu galaan la gelaynaa geedkuu la galaan la gelaynaa raggaasna waxaan ugu aaraynaa mahad karataa iyo madaxdooda Soomaali faham iyo Daacish waxa weeye ummadda Soomaaliya waxaan u sheegayaa dadkaasi dad diin wada maahan dad ilaahay ka furtay waaye nin maskiina oo shaqaala oo 300 ama 400 wax la mid ah qaadanayay oo caruurtiisa dugsi dhiganaysa oo maartay iskuul dhiganaysa ama dad masaakiina ka quudanay ka sadaqaysanay ninka naftiisa dhaafiyay ma ninkaas diin sheeganaya nimankan dawlad uma shaqeeyaan waxa waaye aan ku baad nin la baadi kara ma jirto qabiil ahaan aan loo baadi karin shirkad ahaan aan loo baadi karin maanta wixii ka dambeeyana geed dheer iyo geed dheer baan idin fuuleynaa sida shabaab uu maanta u xanuujiyay shirkadaasna waxa ballan ilaahay inaan shabaab ku xanuujino oo hilibkaaga geedaha aan warno oo meel walba oo god walba aad gashay aan kula galno ama shaati qabiil gasho oo shaati cayr gasho oo mahad karatay noqo ama mahad salaad noqo ilaahay ballankiisu waxa ah inaan meel walba kaaga aargudno oo dhibka aad u geysatay iyo xanuunka aad noo geysatay oo la jiifo weynay lixdaas nin oo dhimatay caawa qadarta ilaahay iyo awoodiisa ku samreena inaan xanuunkaas idin dhedhensiino haddaad qabiil tihiin iyo haddaad shabaab tihiinba waxa waaye waa lay gaadana dhihimaysaan annagu shabaab ninkii shaatigiisa gasto qabiilku doono ha noqdo waxa weeye cayr ha noqdo ama qabiil kale ha noqdo waa noo shabaab waa noo mid meeshaan ku arkina madaxan ka tooganayna meeshuu galan ka daba galayna annaga weligeennana sidaas baan hal shilin oo baada oo shabaab iyo Daacish aan siinayno ama aan sii jirnayna ma jirto Soomaali faan dadka dhimanayana waa dad ilaahay u maartay ilaahay ugu talagalay oo waqtigooda dhamaaday sidii ilaahay ugu talagalana ay u dhacday arintaas cid ilaahay uusan naf ka qaadi karin shabaab iyo Daacish kama qaadi karo shaqaalaha dhammaan hormuud waxaan leeyahay in la difaaco hubkooda la siiyo dawladana la marsiyo meesha ay wax ka dhaceen la raadiyo aageedo dhan la xiro ayadoo dawladana loo kaashanayo dhagta dhiiga loo daraa la rabaa arintaas maanta kadib waxa weeye shaqaaluhu adoo shaqaysanayo inaad dhiigaagana difaacato cizigaaga iyo sharaftaada difaacato waa loo baahan yahay ninkii yahuudiga wuxuu yiri nabi maxamedow ilaahay baan tala saartaa mise oorteedan dabrada allahumma salli alayhi wuxuu yiri oortaadana dabro ilaahayna tala saaro ilaahayna tala saarta hadda ka horna nimankaas wayna soo warareen waa iska dhicinay Soomaali qabiil ahaan baan iskaga dhicinay shirkad ahaan baan iskaga dhicinay qiimkeena iyo sharafteena nin raga waxyaalaha qaar kood inuu dhinta ka qiimo badan waxa weeye maanta wixii ka dambeeya anoo suldaankii baasha maxamuud hiraabe duduble waxaan cadeynayaa shabaab ama shaati cayr ha soo gashto ama had karatay ha soo dirsado ama shaati mahad salaad ha soo gashto meel walbuu joogo godku walbuu galo waanu kula galaynaa waa cidii shabaab shaatigeeda gashay anagu cid kale oo qabiil ah oo Soomaaliya oon dilayno ama aan doonayno ma jirto warkaas waa cad yahay nin walbo beesha duduble u dhashay ku soo toos kuna jiifo meel walbo joogtay sidaad isku difaaci lahayd sidaad qiimkaada iyo ragnimadaada aad maartay iskaga difaaci lahayd canaasirta xunta in soo hunguriyeysatay shaqaalaha shirkadda hormuudna iyo beeko kulli waa ina ilaashataan maartay amnigiina securitykiina feejignaatan Soomaali faham cid ku soo hujuumi kartana male waqtigaaga on gaarina cid ku dili karta male annagu shabaab iyo Daacishna baad naga ma qaadi karo haddaan dhimana ninku hadduu dhinto horta ma qasaarin mala socota adiga ilaahay buu hortagayaa boqorkii intuu loo tagayaa hadduu abaalmarin lahay ilaahay abaalmarin buu siinayaa hadduusan abaalmarin lahayna wixii uu jisaystu helayaa ilaahayna kuwa abaalmarin uu siiyo allaha naga dhigo annagu waana la yaqaan baasha maxamuud hiraab ninkay qabtaan way meetiyaan wayna iska dhiciyaan weligeedna annaga nalama soo hunguriyeysan qabiil Soomaaliya oo soo hunguriyey karta ma jirto qabiil Soomaaliya oo shaati diineed noo soo gashay karta male diimeed oo ama shabaab ama Daacish oo shaati annaga noo soo gashay kara ma jirto looma joogo yiri dhurwaayo hadee hooyada luqun dheer tahay maanta wixii ka dambeeya ama ayba ahaydba waxa weeye iljilib ha looga fariisto waxaa la rabaa 10 in laga sameeyo nimankaas arintaas maleegay garas baalay ayay ku jiraan ciidamada nabad sugidda iyo dawladda ayaan ka sugaynaa insha Allah ta'ala biidnillahi alkareem maanta wixii ka dambeysana hadda dawladuna shirkadda hormuud inay difaacdo oo haddaba arrimo badan bay ka soo difaacdo waa loo baahan yahay waana waajib saaran inaguna securitykeena hoose inaan haysano oo waxyaalaha noocaasa ka daba tag iyo ka hortagba labadaba aan sameeyno
warkaas waa cad yahay anoo suldaankii ayaa iri ummadda soomaaliya saas ugu qaadato shaqaalaha shirkadda hormuud cidduu doona ha u dhasho waa hormuud waa hal qabiil oo soomaali ah waa midnimada soomaaliya soomaaliya diin iyo dhaqaale iyo caqli iyo aragti iyo xoog iyo xisaab dad isku darsada waaye nin sheerla ah iyo nin madaxa iyo mid biyotoniya way u sameeyeen xaquuqda shirkadda hormuud maanta waxaa la rabaa inaad difaacdaan oo casharo aad u dhigtaan argagixisada iyo wax lamidka maanta maahan maalin la kala gambado maalinta runtay taagan tahay soomaaliya nin ragana raganimadiisa ayuu ku meel maraa taas way caddahay warkeyga intaasaan kusoo gabagabaynayaa ilaahay baan u mahad celinaya wax aan ku gafa ma jiraane waxa aan eri wanaagga ilaahay baan uga mahad celinayaa oo boqorka maanta aniga adduunka i keenay birina iga qaadi doono ilana xisaabtami doono ilaahayna waxaan ka baryayaa jannatul firdawsi jannatul naciima ilaahay inuuna siiyo cadowgana soo weeraraya ama shirkadda hormuud ama beesha maxamed hiraabna ilaahay inuu naga guul siiyo ilaahay wuxuu gardaraale libin male guushana ana iskale annagu cidaan dulminayna male cidiina dulmisana laba faroodaan saaraynaa shantaada ninaan kaa reemi ama ururdiimeed ha noqdo ama qabiil ha noqdo hadda kaa istaagi maayo shanteena iskaga dhicinaynaa dowladdeena u kaashanaynaa arintay warkeyga intaasaa kusoo gabagabaynaya anoo suldaanka guuda beesha maxamed hiraaba suldaan maxamed suldaan cigalle suldaan hooley dictor qaanuuni wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu